ciidamada dawladda Puntland saaka waxay weerar ku qaadeen khawaarijtii ku sugnayd Sugure iyo Balle Khadar halkaasoo ay mataqaanaa dhaawac ba'an ugu geysteen ilaahayna guushii uu ku hantisiiyey haddana waxay ciidamadeenu ku sugan yihiin ninkii yaqaanaba waxay ku sugan yihiin Sugure iyo Balle Khadar ayay ku sugan yihiin waxaana la sii raacdaysanayaa habqankoodii iyo wixii ka hadhay ayaa la sii raacdaysanayaa insha Allah waxaanu rajaynaynaa ilaa berito inaanu howlgalkaas soo afjarno sida aanu ilaahay ka baryayno madaxweyne ku xigeen hadda xagee ka timaado anu hadda waxaan ka imi Balle Khadar ayaan ka imi iyaaga hore oo dagaalka waayo waxaan uga dalnahay inaanu ciidamada tusno inaanan ka naf jeclaysanayn goobta ay istaagaan inaanu la taagnaanayn bal qasaaraha iyo sida ay wax u dhaceen madaxweyne nooga hor khasaarahu dhinaca cadowga runtii waxaanu isleenahay khasaaro weyn baa ciidamadu gaarsiiyeen halyeeyada ciidamada Puntland inta aanu aragnay ama isu soo ururinay ilaa 18 meyd ah annagu waanu aragnay waxaanu isleenahay waa khawaarijo ka nixmayno annaga waxay naga dileen 3 askari labana meeshii bay ku dhimatay ninna dhaawaci ayuu ku dhintay saddexdaani waa naga dhaawacantay ilaa 13 askarina waxay naga jirtaa hadda cusbitaalka Boosaaso laba nin mooyaane inta kale dhaawacoodu waa sahlan yahay ilaahayna waxaanu ka baryaynaa gacan xaq darro ah ayaa ku dhacday inuu ka kiciyo wixii ka haray kooxaha la dagaalanteen waxay ku sugan yihiin buuraha ayay galeen farxadkoodii madaxweyne waxaan u garanay wixii laga soo qabtay Allah u naxariisto in la dilay